waxaan soo taagnay iyada oo maartay gegi banaana ma sha Allah waa kii hadraawiyi biyaheedu waa subag caanaheedu waa malab waa beer guuna caadin fara badan oo geed midhooda ayaa ku yaala sida liin macaanta oo maartay baroolgeedi kan yahay iyo liin dhanaanta oo arkaysaan saytuunkii cambalafkii timirtii saddex kun oo geed bay kor u dhaafayaan marka siidka dhul fog baan ka keenay siid caafimaad qaba loo baahan yahay haweeneyda beeruhu cilmiga u baahan yahay cilmiga markaad bilaabayso inaad qalabkiisa iyo hawshiisa u dhameystirto sidoo kale greenhouse markaad samayso wixii loogu tala galay dadku ganacsiga meel kale ka eegayeen inay ganacsiyo kala galaan alimka waxa la leeyahay dhanka ganacsiga ugu faa'iidada badan oo ganacsiga beeraha iyo xoolaha waxaan fahanay in lacag badan laga sameyn karo maanta halkan shaqo ka socota way shaqadaas waxa weeyaan waa yaambo liinta saasa loo yaambaynayaa waa la isku fareeshayaa waa la xiriyeynayaa marka la xiriyeeyo waa la waraabinayaa markaad waraabiso waad digaynaysaa markaad digayso waad nafaqaynaysaa waad buufinaysaa kadib geedkii shaqadiisii saasay ugu dhamaatay asaas horta beeruhu waa nolosha koobaad nolol beeraha la mid horta ma jirto waxay socoto beer bay ku dambaysaa bulshada waxaan leeyahay beeraha ku dadaala markaad beer bilaabaysana iyada beertiis wada marka hore waxaad ka bilaabaysaa geed gaab markaad horta biyo yeesho marka hore waxa lagu dadaalaa biyaha biyihii ma heshay geedgaabkii baad beeraysaa iyada iswadaysa beertu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba daawadayaasha ku xidhan ee channelkeena Godol Media ku soo dhawaada barnaamijkeennan waxaan ku soo bandhigi doonaa maanta mid ka mid ah beeraha waaweyn ee ku yaala magaalada Burco halkaas oo aan kaga hadli doono sida loo maareeyo beerta wax soo saarkeeda dalagyada ka baxa iyo kaalinta ay ka qaadato horumarinta beeraha iyo dhaqaalaha bulshada ee magaalada Burco waxaan sidoo kale ku soo bandhigi doonaa muuqaalka quruxda badan ee beerta iyo dadaalka ka dambeeya ee shaqada beeraleyda gobolka Togdheer waxaan ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan inay isla beertan kale waxa weeyaan ku daydaan oo waxa weeyaan ay gacmahooda wax kula soo baxaan ciidda dadku boorka galiyaan waliba si bahanba dhalinyarada aqoonyahanka iyo waxa weeyaan dadka ganacsatada iyo qurba joogta iyo guud ahaan waxa weeyaan gobolka Togdheerba runtii gobolkan berigoro xoolo dhaqato ahaan jiro waxa la oran jiray gobol xoolo dhaqato weyn laakiin markuu xisub bedel akra booster ama waxa weeyaan xoolo dhaqato beeraley sidoo kale beertan waxay leedahay kayd biyood aad iyo aad u weyn oo ka faa'iideeya guud ahaan beerta sidoo kale halkaas waxa ah barkad iyaduna aad iyo aad u weyn oo runtii wax weyn ka taraysa baahiyaha dhanka biyaha ee beerta solartiba iyaduna halkan ah وكيد آدي أدوينه دررن لا يدور متر haweeneyda beeruhu cilmiga u baahan yihiin cilmiga markaad bilaabayso inaad qalabkiisa iyo hawshiisa u dhameystirto sidoo kale greenhouse markaad samayso wixii loogu tala galay in aad soo qaadato tamaandhadii markaad soo qaadato xibada greenhouse waxa weeyaan markaad si wacan u beerto xibada greenhouse nafarta ka waxa galaya 2,000 geed 2,000 geed waxa weeyaan inuu geed mid ka dhiman oo sidiisa uga soo baxdo buufin markuu doono inaad buufiso waraab markuu doono inaad waraabiso dhagahaas ka gurso markaad u doono inaad ka gurto markaad wax walba u dhameystirto geedka kaliya wuxuu ku shaqeynayaa 12 bilood 12 bilood marka aad maxaan ku raday xasharaadka iyo waxaad ka kantaroosho si lagu talagalay uga shaqeyso xibada greenhouse waa inay gooni ahaanteeda ay 3,000 ama 4,000 ku soo fadhiisato oo kharashkeedii soo celiso laakiin haddii aadan cilmigii u haynin way iska dhibaato badan tahay oo waxba halka kama helaysid marka taasi waa taa marka hore beeraha asaasku waa cilmi haddaadan cilmigii u haynin waad ku dawaqaysaa inta dalaga halkan ka soo baxa waxa weeyaan liin macaan horta waa lambar 1 lambar 2 liin dhanaanta lambar 3 saytuunka cambalafka marka liin macaantu markay shaqadeeda shaqadeedu aad u badan tahay waa geedka kaliya ugu qaalisan saytuunkuna deeysa wala si garanaya sarcu nuguma badno horta geed weynta xad ka baxsan oo dhulkii sarca laga beer lahaa banaana ma jiro inta yar greenhouse weeyaan maadaama geed weyntu soo badan tahay waxa weeyaan dalag ka soo baxa geed weynta weeyaan qudrada bulshada suuq soo ka faysaa magaalada si fiican buu ka faysaa inkastoo beeruhu de halkan ku badan yihiin haddana waxaan ku raadayay lagama dhirgo qudrad
maalin walba halkaas aan lagu yimaado meherad meesha furan weeyaan halkaas aan naga qadan ها برسنا كويبنا سوق يبان ودرنا waxaan ku raadayay saa weeyano inta imiga shaqaale ka shaqeynaysa beerta malaha dhowr iyo 20 qof weeyaan masha Allah shaqaalaha ha waxa shaqaalaha daliintaas baa la doonayaa inay kala habeeyaan waxay ay soo celiyaan sa looga shaqeeyo marka nolosha koobaad waa beer iyo baaba shaqadaas waxa weeyaan waa yaambo liinta saasa loo yaambaynayaa waa la isku fareeshayaa waa la xiriyeynayaa marka la xiriyeeyo waa la waraabinayaa markaad waraabiso waad digaynaysaa markaad digayso waad nafaqaynaysaa waad buufinaysaa kadib geedkii shaqadiisii saasay ugu dhamaatay geedkii isaga markaa waxa la wixii u baahnaa markaad siiso isaga soo celinaya kan waa liin macaantii oo kaamiraheedu kuwaas waa liin macaantii saasa loo maqasanayo maqasba halka lagu gooyaa sababtoo ah geedkan wuxuu keenayaa qoriyeenka bubaarka keenaya markuu shaqayray hoos ka dareemo gunta markuu shaqayr ka dareemo baarkaas ka soo ingegaya qorshabkaas aad ka guraysaa manqas baad kaga guraysaa wixii noocaas ayaad ka wada guraysaa manqas baad saa ugu goynaysaa si farsamaadii manqaska markaad ku goyso geedku halkaas curub ka sii deynaya laan cusub oo hore ayuu soo deynaya kadib laantaas way baxaysaa way u bixinaysaa midhaha bay dhalaysaa laakiin haday laantu baarka ka soo ingegto waxba kuma dhalayso marka qorshabkaas laga ilaalinayaa geedka sabab waxaan oo ahay gunta markuu shaqayr ka dareemo baarku ka soo ingegaya halkaas uu xumaanaya baarku ka soo ingegaya marka guntiisa geedka lagu dadaalaa mad fahanti si uu baarku uga socdo liin macaantu way ka shaqo badan tahay dhirta kale halka shaqa ka socota caleentaas laga gurayaa qoyanada rabto dadka qaar waxay moodayaan geedkii qoyan oo la gooyay laakiin laanta qoyanada ragta waxay ku fadhidaa ingeg waxay soo sidaa ee halka ma ka soo ingegtay hoos buu soo socotaa marka halka inaad ku goysaa loo baahan yahay si laan cusub ay kugu soo baxdo ha wata imiga taa la gurayo liinta qoyanada ragtay la gurayo ingeg ayay sabab u tahay marka waa laga hortagaa markaad sidaa uga hortagto geedkii cimri dheer buu ku yeelanayaa haddii laakiin fahmi weydad ka goyn weydo engagu hoos buu soconaya liintan markii dhawid soo dhaxmarnay la goynayay iyo liinta faqriga u dhaxeeya wuxuu yahay geedkan imiga wali lama soo gaarin waana arkaysaa baarkiisu soo sii noqonayo ha waa kii la goynayay hadda koor baan laga goynay haddii imika laga gaari waayo halka lagu goyn waayo geedkaasi tabtaas adaragtu noqonaysa uu dhimanayaa marka shaqayruhu gunta ka dareemayo waa soolartii waxa laga faa'iideysaa cadeeda halkii aad mishiin soo qaadan lahayd shidaal kaaga bixi lahaa iyo qarash bila qarash bay biyo kugu soo qaadaysaa inta maanta ay cadceedu socoto biyaha way wadaysaa marka ma 12 maalinimood ka faa'iideysan kartaa cadeedaas kula shaqeynaysa maanta waxaan joognaa beertan oo la yahay barwaaqo wan waa beer qadiimi oo dhowr iyo 10 sanadood bay jirtay maanta waxaan soo taagnay iyada oo maartay gegi banaana maantana waa aragtayno in ka badan 3,000 oo geed baa ku beeran waa kuwa midhihii ka soo baxay aan gacanta ku hayno gobolka aan joogno gobolka Togdheer wuxuu ahaa gobol xoolo dhaqato ah oo xoolaha dadku dhaqdaan laakiin se maanta waxaan bulshada u sheegaynaa in maanta gobolkeena Togdheer beerihii iyo xoolihii inay labadiiba maartay maanta gacanta ku hayaan marka waxaan joognaa maanta beertan barwaaqo waa beer guuna عادين فربضان أو جد مدودا يكون يلا سيد اللي معانته أو معرض برودة جدي كان يهاي يلي نران تو أركيسان سيتونكي عمبلفكي تمرتي ودلجة كوي يلا إرتكوا تعالى وقوة سبيين صدق كانوا جد بيكرر دافيان عادي عاد وحن وصل ويننا دتك معرض إني ددالان دتك هبرعو إني معرض بيرها أنا بيرتان كل واحد شراء قبل كان تقدر ما دام أن وهان شريك قبل حول رقطة وأن مركي عن بيرة بلوني عقبات بدن بنجوريمي عقبات كوا حكم إذا أنا قونا تبيرها عن خبرات ولهين وحكى له عقبات كم إذا قلب أنا هيسن أقون أنا ولهين قلبنا أنا هيسن سيرك أو مارتين سيركي مركي دولدي بربورتي سيد با لكيدين شري دولدو كاليان
siidkii oo salaftiisu raacid maartay burburkii raacay marka siidka dhul fog baan ka keenay siid caafimaad qaba loo baahan yahay marka caqalada waxa kamid ah siidka kamid ah maartay supportiga ay nasiil lahaydeen dhiirigelin lahayd maartay iyo hay'adihii maartay ku shaqo lahaayeen maartay dadka dhiirigelin lahaa aan gobolkeena ka jirin maanta waxaan rajaynayaa maanta xukuumaddan maanta oo Cabdiraxmaan hogaaminaya inay maanta maartay beeraha ay u soo jeesato inay wax badan maartay beeraleyda la qaban doonto aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa madaxweynaha qaranka oo maanta dadaalaya oo maartay wax badan maartay ictiraafkiina keenay beeraleydana dhiirigelinaya biyaha gobolkeena hodan buu ku yahay biyo macaan buu hodan ku yahay ma sha Allah waa kii hadraawiyi biyaheedu waa subag caanaheedu waa malab Xuseen badanka waxa la yiraahdaa dadku ganacsiga meelo kale ay ka eegayeen inay ganacsiyo kala galaan alimka waxa la leeyahay dhanka ganacsiga ugu faa'iidada badan oo ganacsiga beeraha iyo xoolaha la arinta ka wareysada beeraha iyo xoolaha waxa laga sameyn karaa ganacsi aad iyo aad u qaaliya qof waliba intuu galiyo buu kala soo baxaya markii hore wax badan baa naga hor yimid laakiin maanta waxaan fahanay in lacag badan laga sameyn karo beerta tan oo imika laba injineer ila joogan oo aan laba injineer oo khubara u keenay waxaan rajaynayaa maalin dhowto in lacag badan oo maartay ganacsiga kala ka fiican laga sameyn doono shaqaalaha maanta waxa ku jira shaqaale dhowr iyo 10 weyn oo 20 ku dhow baa imika ka shaqeynaya shaqo abuur baan ka sameynay rag iyo dumarba way leeyihiin marka waxaan rajaynayaa inay maalin dhow maartay hadii Ilaahay ka dhigo ay ku filaan doonto oo maartay sancadan cusub ee qaabka cusub ee beeraha maartay technology-ga cusub ayaan doonaynaa inaan hadda waanaga ayaan ku wadnaa waana halka oo adiga soo arkay dhulkii aan technology-da ka soo bilownay waxa weeyaan Maxamed Cabdi Yuusuf waxaan isu duwaa wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer maanta waxa weeyaan beertan joogna waxa weeyaan beerta barwaaqowan ku taala waxa weeyaan area Sibakti runtii maxsuulkii ka soo go'ay wanaga soo joognaa maanta alxamdulillah rabbil caalamiin farxad weyn bay noo tahay waxa weeyaan soo go'day maanta waan aragnaa waxa weeyaan liin macaanti iyo waxa weeyaan liin dhanaanti iyo liin qarbashada ku taalay iyo sidoo kale waxa weeyaan timirtii iyo saytuunkii iyo sidoo kale kaash croopka iyagana waxa weeyaan greenhouse-idii ku yaala aday noqoto tamaandhadii wixii la mid ahaa beeraleyda gobolka Togdheer waxaan ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan inay sida beertan kale waxa weeyaan ku daydaan oo waxa weeyaan ay gacmahooda wax kula soo baxaan ciidda dadka boorka galiyaan waliba siib ahaan dhalinyarada aqoonyahanka iyo waxa weeyaan dadka ganacsatada iyo qurbo joogta iyo guud ahaan waxa weeyaan gobolka Togdheerba runtii gobolkan berger oo xoolo dhaqato ahaan jiro waxa la oran jiray gobol xoolo dhaqato weyn laakiin markuu xusub bedelay Akraposter ama waxa weeyaan xoolo dhaqato beeraley ciideena waa ciid hodana biyaheena waa biyo qaniya waxa weeyaan hadda isla helno adduunyada wax ka dhacay weyn ognay hadii maanta waxa weeyaan marinka horus waaba xidhan yiibada imika haduu ka sii darto waxaan haysnaa waa neef xoolo maanta inaguma filna marka dadkeena waxaan ku wacyigelinaynaa ku dhiirigelinaynaa inay waxa weeyaan iskaashadaan oo maraqooda iyo waxa weeyaan maskaxdooda waxa weeyaan mideeyaan daawadayaal waxaan inta ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aynu kaga hadlaynay wax soo saarka beeraha aan ku booqanay beerta barwaaqowan ee ku taala magaalada Burco inta isku iman doono barnaamijyo kale oo manfac u leh bulshada waxaan ka codsanayaa inaad subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-iga iyo waliba share-ta aad nagu taageertaan